Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ruuxi Home Decor. Waa gabar YouTuber-ka ku cusub. Maasha Allah, waxaan ahay gabar uma amal walaasheeda marka waxaan rajeynayaa inay igu soo dhaweyn doontiin insha Allah. waxyaabo badan aan ka faa'iidi doontiin insha Allah channelkeyga. Hadday noqoto cooking, hadday noqoto cleaning, hadday noqoto decoration, hadday noqoto weight loss, everything insha Allah. Marka kusoo dhawaada hadeertaan waxaan sameynaynaa qolka jiifka iska hagaajina insha Allah. Marka waa idin la wadaagayaa daahyada iska bedelaya, go'a iska bedelaya insha Allah. Marka saa u jeediinbo hadeertaan daaha raba aan xiro daahaneed gareega ku xiranaya insha Allah. Kadibna hadda waa kana waa dhameeyay qolka sida ku soo baxay oo jeediin maxaa la dhahay waa ka dhag waa ka unsigeena noo shidan kaala iska arag grey waaye iyo black insha Allah. Marka waa ka wixii subscribe iyo like and dhinaciina waaye inay soo dhaweysiin waaye insha Allah. Waxyaabo badan ay iga faa'iidi doontiin home decoration and everything. Kusoo dhawaada saa u jeediinbo kana meeshaan candle holder yara idin saaray oo jeediin frame-ka sirgeeska seedka saaran Masha Allah. Marka insha Allah hadeertaan subax ay tahay marka seeta soo kacay soo kuubo guri nadiif ah iska bilaabay inta oo ciyaalka igu soo kicin waa ka markaan hawshaan iska dhadhameeyaa ka bacdi quraac iyo wixii aan qaban doono insha Allah waa isla wada arkeena. Masha Allah hadda maxaa la dhahay waa kana saa u jeediinba meeshaan waa fadhigeyga. Kusoo dhawaada fadhigeyga. Marka fadhiga waxaa waaye waxaan iska hagaajiyaa haweenkii markaa seexanayo. Marka intaan seexanna maxaa la dhahay wax kasto aan iska hagaajiyaa si hoosh igu kala yaraato waayo subaxdii shaqaale aan ku tushanayo ma lahan anile isku shaqaale anile wax kasta iska qabsanayo. Marka waa kana fadhiga xalab saana ugu seexday asigoo clean nadiif haweenkii guriga iska nadiifisid baraanbar iyo qashin dhan ma arkaysid. Soo shaqaaladana mostly dadku way caajisisaa marka shaqaale la'aanta wax dhaama ma lahan aadin dhihi lahay. Hadda waa kana quraacdeeda bilaabanaya my morning routine waaye. Marka dibka iska shitay ciyaalka mishaar u karinaya ka bacdi anina maxaa la dhahay biyaheyga liinta iyo waxyaabo isku caatay iska sameysanaya quraacda ilmaha sameynaya tirsan mishaaridooda u shiidaya mishaarida markay ii karto ka bacdi ilmaha iska siisanaya ka bacdi marka u dhameeyo quraacda anina wixii iska dhameysto marka maxaa la dhahay waa fadhiga iska fariisanaa ani ciyaalkeyga meeshaas kala ciyaara ilmaha kadib ilaa iyo xilliga qadada markii laga gaarayo meesha ilmaha ku dhedheelsiista waxaan jeclahay ilmahayga waqti inaan la qaato waqti aan siiyo soo waqtiga aan siin karan waa subaxda intii qadada u dhaxeyso quraacda markii aan ka dhamaano ilaa iyo qadada laga gaarayo ciyaalkaas kala dhedheelaa cause haweenkii mostly shaqada haweenkaas ka qabtaa ka bacdi markaas seeta qada karis iyo hawshan kala maalinteena kala meesheedana ka sii wadanayna insha Allah isla wada arki doonaa.
waa kana marka insha Allah wiilkeygaan quraacdiis u sameynaya mishaarida markuu cabo ka bacdi wuxuu jecel yahay inuu ukun cuno iyo rooti oo ismaris ah insha Allah rootiga shukulaato marinaya ukuntaanita u duwan insha Allah waa arki doontiin soo ku soo baxbo waa kana rootigii waa soo mariyay ukuntana waa soo dubay ketchup yar kor ugu soo shubay galaaskiisa cabitaanka ee quraacdiisa ku qaba insha Allah soo hadartaan qada karstaas gala insha Allah basasla meeshan ku soo diyaarsaday maraq digaag iyo qarfo iyo filfil dhagayaro iyo heel iyo royco cube waxaa kaloo ii yaalaa digir waxaa kaloo ii taalaa xawaaji kaari iyo sabiib sanjabiil shiidan iyo xawaaji isku dardaraan isku shiitay insha Allah marka bariiska hadartaan aan guda galeena saas ku dardarayno arki doontaa insha Allah meeshan bariis ay ku radsan 3 bakeeri bariis ah isla bakeeriga bariiska aan ku cabirtay ayaa maraqan ku cabirana inta bakeeriga la shantiisa oo maraqa ay u cabiraan maraqa hilibka aan ka soo bixiyay waaye insha Allah soo hadda digsiga soo saaranaya saliida ku soo shubanaya ka bacdi saas ku dar doon insha Allah waa arki doontiin indhihiina idin macallin ah waa kana waxaan ku soo darayaa saliidii waxaan ku soo shubayaa qarfihii iyo heelkii iyo dhagayaraha iyo filfisha aan ku soo shubayaa xoogo carafta saliida ay bedelaysaa insha Allah ka bacdi markaas ay taa basasha ku darsanayaa after basasha aan ku darsadana hal qaado cusbo ku soo dari doona insha Allah ka bacdi isku walaaqa isku daboola insha Allah ilaa ay ka kareyso ee iga guduudanayso ka bacdi hilibka diyaarsan doona insha Allah arki doontiin markaan qaadada cusbada hadda ku soo daraya cusbada basasha markii lagu daro waxay ka caawinaysaa inay dhaqso ku karto basasha biyaha basasha dhaqso ka dhamaanaya insha Allah basashan way ku guduudanaysaa si dhaqso badan ka bacdi insha Allah hilibkeena diyaarsanayna kana hilibkii aan soo diyaarsanayna insha Allah caraf ku darsanaya soy sauce curry powder jumbo waxaa waaye maraq digaaga insha Allah waxaa kaloo ku darsanaya insha Allah xawaaji kaari yar aan ku darsanaya insha Allah hilibkana zaaid oo iga kare marka shiilitaan badan uma rabo insha Allah wax yar la waxaan rabaa inaan saliid ku gidgidiyo alaha carafta la soo gudaha ugu galo insha Allah waa kana hilibka wixiisa dhan waa u dhameeyay soo wax yar saliida ku dara insha Allah ka bacdi dabkaan saaraya wixii caraf dhan way u dhamaadeen waa ka caraftiisa dhan waa ku dara insha Allah maraq digaaga sir ay ka dhanaan ku soo darada basasheeda bariiskan ku laabtay waa ii kartay saa u jeediinba maasha Allah guduuda ay noqonaysaa biyihii dhan way ka dhamaadeen way soo shiilmatay xawaajiga shiidnaa sanjabiisha shiidneed iyo xawaaji kaari ku soo daray
insha Allah bariis yar oo caraf badan macaan badan aan rabaa inaan kasoo tuuro insha Allah. toon yar aan kusoo daraya ka bacdi waxa toonta ku daray wixii dhan isku qasaya isku walaaqa markaas fiican isku dhaxgal insha Allah marqiya kusoo shubi doona la arki doonteen insha Allah. waakana marqiya ku shubaya insha Allah. maraqi dhan ku gudiyay isku walaaqa insha Allah. waa daboolaya waxaan sugaa inuu ii soo karkaro insha Allah. digirta cagaarta kusoo daray then we done. waaka uu ii soo karkaray bariiskii aan kusoo shubay. bariiska markaan ku shubo kastoo ku walaaqo daboolkiisa u dhiiba insha Allah. hilibkii ka bacdi aan ku noqonaan fiirina. hilibkeyga waa kana diyaar waaye. marka waxaan sameynayaa wax yar kabsar caleen aan kor ugu daraa ka bacdi waa daboola dabkiisa u daminaya diyaar waa hilibka. bariiska suganayna insha Allah. markana bariiskeyga tuu ii soo badbadaya uu ii gursado waa kana maasha Allah. kaala arag aan ku dhex xabad bariiska dhan maasha Allah. waaka food color yar aan kusoo darsanaa insha Allah. waa bariis Somali food waaye. waxyar food colorkaan ku qasqasaa insha Allah. بعد سبيب يران كر قدنايا دوال كنا لو دايرنا إن شاء الله. ما كنا صوت دواله waxaan ku riday waxaan soo saaray aluminium foil aan ku daboolay ka bacdi dabka aan u gaabinaya daboolkiisa u dhiibay. waa kana maasha Allah bariiskeena inta taan sacad gelina kaal arag xabad ku soo baxay maasha Allah. caraf lagama sheekeyn karo caraftiisana saa u jeedin indhihiina idin macalin inuu bariiska dhan uu ishaysanin mid kasta meeshiisa ay tahay insha Allah. after aan soo guray waa kana maasha Allah macaan kun qurax waaye. okay waxaa kaloo noo harsan meeshaan aan ku haysanaa mint waxaa waaye nacnaac. waxaa kaloo haystaa liinta oo macaanta qolofteeda aan soo grate kareysto wax yar iyo liin dhanaan yaryar aan soo jaray iyo waxaan haystaa liin macaanta aan soo jarjartay iyadana iyo cananaas. intaasay taa maanta cabitaanka shiidanaya. cabitaana caadi ahna waaye. miraha liinta iska ilaaliya. mirta hadday idin gasho waxaa waa qareer uu juiska ka dhigaya. kanna waxaa waaye kan gudaha haddii oo aad dhahdid waan ku jarjaranaa blenderku ka haleynaya insha Allah. mashiinta wax lagu shiido mirtan iska ilaali haddii kale juiska qareer ma la cabi karo. after qadadeen dhammaystiran waatana kusoo dhawaada guys insha Allah. welcome to my channel. مع السلامة.